أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha toddobaadkan hadduu la qadaro insha Allah barnaamijka waxaynu ku lafaguraynaa is-aqoonsiga yahuuda iyo maamulka Soomaaliland barnaamijka intuu socdo insha Allah waxaa nagala qayb galaya Sheekh Aadan Sunni iyo sidoo kale Abwaan Samakaab waa mar kale iyo barnaamijka diirada jimcaha زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aan gudaha u galno barnaamijkeenaga waxaa farxad weyn inoo ah Sheekh Aadan iyo Abwaan Samakaab inaad naga aqbashaan ka qaybgalka barnaamijka diirada jimcaha oo aan toddobaadkan ku lafagurayno is-aqoonsiga yahuuda iyo maamulka Soomaaliland جزاك الله خير إذاعة الفرقان آدي آد بي مهدسنتي أنغنا وأغو مهدنقينا مرتقات كودا وانا لكا قبل لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته aad baad mahadsantahay walaalo adiga iyo idaacadda alfurqaan aad baan idin soo dhaweynayaa waana mahadsantahay walaalo su-aasha koowaad waxaan siinayaa Sheekh Aadan Sunne isla markii ay aqoonsiga isdhaafsadeen Cirro iyo Netanyahu waad hadashay adigoo aad u baciidsanaya waxa dhacay horay miyayna marnaba kugu soo dhicin arintan oo kale الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد أي نعم أرنت وجوابت وها إن وحنا كلين يقصوا دعين ويجرتي إن أنا هذلي مر هورين ويجرتي ومان يعني ميل لقات كيسميني مرينين سقونسي بعد كل شيء وانا سقونسي لكن سقونسي حقنا فائدة كوا حقنا خسارة أقونسي يهودا الصومالي كلا قيبسي إسلام كنا كل دجالهم يسوي فائدة مجرته لكن نك يهودي جاهه هر يهودا دانو بحيم وهرجيزة حكومة isagoo inuu yahuudda u aqoonsaday dhulkii Falastiin laga boobay waa guul darro aqoonsina iyada markaasi wuxuu ku filan tahay waxaa jiray cilaaqaad ka dhaxeeyay gobolada waqooyi ilaa madaxweynaheedii markaa la oran jiray Maxamed Xaaji Raamin Cigaal itiraaf waa la bixiyay maalintii xornimo ku sheegay Ingiriisku uu bixiyay yahuudda itiraaf ay bixisay laakiin itiraafkaasi kan uu ka duwan ninkaasina beriga wuxuu ahaa ninkii lahaa dib inoo dhiga aynu dawlad noqono aynu gaar u joogno ninkii lahaa buu ahaa dadweynihii laakiinse ayaa diiday oo dawladnimadii markaa la qaadanaya yani harka ahayd iyagaa mideeyay dadku ka diido ka farmararsaday cilaaqadaasi way socotay xataa markan dambe dhowr iyo sagaashanadii meesha madaxweynaha ka ahaa warqad sira baa la sheegayay oo dadku aad u tadaawuleen oo u diray yahuudda inuu ibn Bari u noqonayo cilaaqaad kale waxaa jira safaraa dad markaa khafiya dad aan aqaanay kiristaana qaar cadaysta iyo qaar aan qarsada qaar raga iyo qaar dumar ayaan ogaan waxaa jiray falataat lisaan ragga madaxda qaar kamid ah oo ka soo dhacayso aan albaabada Israa'iil garaacna kuwii kale laga furi waanu joogni markaa waana radin jirnay laakiin maxaa dhacay waxani yani silzaal buu sameeyay waqtigan itiraafka yahuudu ka duwan kii hore silzaalkaasna wuxuu ku sameeyay midnimada isku duubnaanta geeska Afrika muslimiintii ku nooleed gaar ahaan Soomaalida hase yeeshee itiraafka yahuudan markaa cadaawada u guntantay muslimiintu aqaalintan galbeedka ay itiraafayso aniga agtayda wuxuu ahaa shay yani markaasi qariib jiddan ayuu ahaa sharciyan baan ka eegaya xagga caqligana waan ka eegaya ama xukunka shariicada waa shay xaaraana waana tafriiq ummad islaam la kala geeyay oo Soomaaliyeed waana dagaal islaamka oo dhan lagu soo qaaday waana makri loo qoolay islaamka iyo muslimiinta oo dhan lana doonayo in la gadoomiyo dadka muslimiinta ah jasiiratul carab haday tahay shaam haday tahay ciraaq haday tahay markaasi maxaan ku dhahdaa dawladdan markaasi shiicada ee Iran iyo dawladaha kale islaamka iyo kuwa Afrikaba markaasi la kala dhantaalo la gadoomiyo la doonayay wadankan in la furto geeska Afrika la ixtilaalo ayaa la doonayay waxa weeyaan acdam dalika waxa soo dhan ka daran xagga markaasi sharciga yani markaasi yahuudani waxyaabaha ay la yimaadeen ee itiraafkan uu huwan yahay waa walaa inuu ka dhaxeeyo imika bana uu daahiray xukuumadda Hargeysa iyo yahuudda markaasi qabsatay Falastiin waxa ka dhaxeynaya walaa aqadiya ayaa markaa imanaya oo diinta islaamka dibadda uu ka noqonayo qofka walaaga yahuudda siiya وانا من ناحية الشرعي عقلك سليم كأن نبض قبا وحو قدعينيا إن أرين آد أفق تهي حكومة ملعونك مجرمة
ee jasaarka ee hiliblaha ah ee gacanku dhiiglaha ah ee dhiiggii abriyada dadka muslimiinta falastiin gaar ahaan reer qasa gacmahooda ku dhooban yahay inay maanta markaasi ictiraaf u doontaan iyagana ictiraafaan qof kasta oo caqli saliima ayaa qariib ka dhigaya umamal kufri oo dhan adduunyada jooga in yaroo markaasi dee iyaga soo rabaystay mooyaane arrintaa aad bay uga weji dadbayaan waanay fogaysanayaan yuhuuddana way ku gooyaan cadhana way u qabaan waanay nacdalayaan waa kuwii gaalada ahaa mid oo waddan la leeyahay waddan islaam weeyaan ayuu markaasi madax u yahay waddanku waa waddan islaam dadkuna waa dad islaama laakiin ayuu madax u yahay murtadkaa yahuudiyoobay waxa weeyaan wax la qariibsan karo haa mujtamaca muslimka ahi ee shimaalka degani xasaasiyad buu yahuudda ka qabay aan aqoonay inaanay ku dhiirin karayn baan markaasi u arkayay arrintaasi maxay ka dhigaysaa markaa ictiraafkani midoo aad loo fogaysto dhicitaankiisa jeeraan aragnay inuu dhacay cajaa'ibta adduunyada maanta dahrigaynu ku noolay bay ka mid tahay laakiin waxayna tusaysaa in adduunyadii soo gebagaboobayso waxa dalaalka iyo inxiraafka la yidhaahna oodaha goostay uu markaa derbiyada jebiyey fasahaadkuna waa arlada camimay bad iyo berriba markaasi uu camimay ayaynu arkaynaa waa xukuumad dabadhilfa waa xukuumad murtadada waxa weeyaan markaa diin la'aan bay ku taagantahay xukuumaddu idaa dahaba diinu dahaba kullu shay diin marka la waayo wax walba waa la waayaya nebigeenna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam maanta aan joogno ayaamahan u dambaysay ayaa waxa ay ku dhaadanayaan inay markaasi shir weyn oo markaa gaaladii waaweyneyd gaalkan asaasaqay kuu dhalay ee maraykanka jooga gaalo kale loogu sameeyey markaasi meesha shirka markaasi adduunyada lagu qabanayo inay markaa madaxweynihii yahuudda uu kula kulmay uuna ku faraxsan yahay markaasi weeyaan waxaa rasuulka laga sheegay calayhi salaatu wasalaam kana ansaxay ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta waxaa ambiyadoo dhan laga soo gaadhay oo ummaduhu soo kala gaadheen oo la soo kala wariyey oo diinteennana ka mid ah haddaad bilaa xishood noqotoon waxba dhowrsanaynin waxaad doonta ayaad samaynaysaa iminka ninkan ayaa ka dhiganaan markaa xadiidka u soo qaatay saxiixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaam axmed uu ka warinaya markaa sheekaynkana markaasi ku ansaxay marka waa xishood laawe waa damiir laawe waa dadnimo markaasi wuu beelay diinna kama hadlayna iminka ay haystaan kamaanaan filaynhaa wax la fogaystana way hayd waayahay waad mahadsan tahay sheekh aadan waxaan siinayaa abwaan samakaab abwaan dadka qaar ee u hadlay maamulka somalilan waxay isdhexgelinayaan ummadda horumarkeeda iyo sidoo kale soo dhowaanshiyaha yahuudda maxaad leedahay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam aad baad walaal mahadsan tahay marka koowaad horta taariikhiyan baa aynu ognahay qofka dad luminaya ama shaydaanku markuu wax luminayo sida ilaahay qur-aan kaga warramay waxyaaba uu dadka wax ugu shabaho ayaa jira cid kasta oo doonaysa in cid lumiso waddooyin ay u martay leedahay oo ay ka abbaarto waddooyinka waxaa ka mid a in qofka dhan wanaagsan wax laga tuso qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay shaydaanku markuu nebi aadan iyo xaawa luminayay waxyaabuhu adeegsada waxaa ka mid ahayd inuu u sheegay inay malaa'ig noqonayaan ama inay weligood waarayaan oo ay geerida ka badbaadayaan qur-aanka ilahay wuxuu ku sheegay فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين جدا إلهي إذن كمير بو أيو شيطان كورونا يا نبي آدن يحاوى إن النقطان لبا ملك إن النقطان ضدوارا مويان ساسو إذن كرر ما أنت نمانك يهود ويرنا يا سياسيين تا قال الراعية دا هدي أي دادك كوية يهود بين راعينا دي waxay og yihiin aan laga yeelin marka waa inay wajh wanaagsan dadkii barnaamijka u galiyaan oo yidhaahdo nibcaynu gaarayna saynu naqaano siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama siyaasadda adduunyada ka shaqaysaaba waa wax beenta iyo propagandada iyo wax istoomarinta iyo kadibku waa caado ay leeyihiin qaar ka mid ah abwaanadii Soomaaliyeed oo arrintaa ka cabanaya ama arrintaas ku diidan siyaasiyiinta ayaa gabayooda la arki doona tusaalaha imika Cabdiidaan Faarax ninkii la oran jiray Hargeysa ahaa mar buu ka yaabay dee siyaasigan beenta uu sheegay nimca la gaaraya 20 sano ka bacdi waa noolaanaya jannadaynu halkan ka gelinaa waxaas mid dadku akhriyaan inta meelaha ka hadlaan marka wixii qoys 16 oo masruuf qadadii loo haynin khudbad minister radio loo kale kuma qadeeyaan buu yani dad iyagiiba ay duruufi hayso haddaad waxaan ku nin siyaasi khudbad meel soo taagay kuma qadeynaya weeye waa beentaas uu sheegaya jannaynu halkan ka gelinaa baa lagu oranaya sidoo kale nin kale wuxuu yidhi isagoo u dulxulay nimanka ilay diginin beentu yaqaan waa dadka oo kale buu dad waradhacdu buu hayaa roobnadii uu ilaahay maalintii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay qabsadeen gaaladu ay ku wareejisay Soomaaliya wuxuu baa leeyahay nimcaynu gelinaa waana ka sii darasa marka dadku maskaxaan inay ka fikiraan baa wanaagsan horaa lagu soo daalay halkan baynu jannada ka gelinaa siyaad barha la ogaado 20 sano Soomaaliya been ku akhriyo halkan baynu ka gelinaa jannada iyo cirkaynu gaarna iyo shuuc baynu noqonaa iyo halkan ka dhacayna meeshii ku dambeysay waa tii la ogaa marka
soomaalidu dee dad caqli yar miyay yihiin talow beenta loo sheegayay ee lagu akhriyayo soo inay ka gaadhaan maaha shalay iyo daraad iyo tii ku horeysay ninka been kuu sheegay haddana inaad maanta sii rumaysataa mashaakilka tahay ka mid tahay waxa sidoo kale ay nimankani ogaadeen dadku meelaha ay ka nugul yihiin dadkan waqooyi degan 30 iyo dheeraad sano ayaa meesha cidla lagu gooyey kadibna been baa lagu akhriyay dadka waxa looga dhigay mashaakilka haysta inay ictiraaf la'aan tahay wax kasta oo mushkilada wax leeyahay waa ictiraaf la'aanta waa aqoonsi la'aanta haddii la yiraahdo aqoonsi waa nimcaan gaar lahayn marka dadka waxaan soo jeedin lahaa nimankaasi maadaama ay been waasiyihiin beenta ay yaqaaniin in laga waantoomo oo dadku ay caqliyeystaan oo sideen ognahay aqoonsi waxa ma dhalo aqoonsi meel lagu ma gaaro haddii lagu aqoonsado aanad waxba ahayn oo aad waxba la soo bixi karin oo aanad naf lahayn waxba meel kuma gaari kartid waa tan dee Soomaaliya aynu aragno 60 sano wax ka badan baa la aqoonsan yahay horumarka laga gaaray muxuu yahay waa kan Xasan Sheekh Muqdisho haystee marka dadku dadnimadoodii wax soo saarkooda ayay wax nolol ku hantaan oo ay wax ku noqdaan laakiin aqoonsi waxa lagu noqdo waynu aragnaa adduunyada dawlado aan la aqoonsanayn haddana adduunyadu dhammaanteed u baahan tahay waxa ka mid ah tusaale ahaan dalka yar Taiwan leeyahay waxay soo saartaa chipkan yar computer ku shaqeeyaan waa wax loo wada baahan yahay adduunka oo dhan ayaa ilaalinaya maadaama ay wax macnale soo saarayaan dadka wax ugu filan yihiin marka haddii dadku intay ka baxaan waqtiga ay gelinayaan aqoon raadsi iyo in dad kale baryadooda waxaan ku talin lahaa inay wax la soo baxaan cilmiga iyo caqliga intii labadaba tuujiyaan inay wax soo saaraan kana faa'iideystaan caqligooda oo ay iska daayeen dawarsiga iyo daba wareega dadka gaalada iyo waxa aqoonsiga ay ku sheegayaan ay daba wareegayaan ee yuhuud loo galay way habwan waan kugu soo laabanayaa sheekh aadan maxaa cilaaqo ah oo ka dhaxeeya heshiiskii badda loogu saxiixay Itoobiya iyo kan khadka telefoonka cirro ee Netanyahu alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wabacd cilaaqada ka dhexaysa xiriirka ka dhexeeya saxiixii loo saxiixay gobol markaa ka mid a badda iyo dhulka Soomaaliyeed xabashida loo saxiixay iyadoo bixinaysa iyaduna ictiraaf siday sheegteen gobolada waqooyi ay ictiraaftay inay ka madax bannaadaan Soomaali inta kale ictiraafka kale ee Netanyahu ee uu ku bixiyay telefoon isagoo ku soo hadlaya horta waxaa jira meesha wax la tashaabo laba gumeysi wax badan iska shabaha weeyaan labadan dawladood ee kan xabashidu yani alhadbal xabashiya wax la yiraahdo dhinaca galbeedka waqooyi shay degan yihiin dhulka la leeyahay marka xabashida ballaaran ay haysato waa dad aynu inagu ka midnay muslimiinta oo muslimiin kale ka mid yihiin ayaa la gumeystay oo la qabsaday oo aan iyagu lahayn yahuuduna rugcad ay ku fadhido waa dhul aanay markaasi lahayn oo dadka muslimiinta ay leeyihiin way ka tashaabuhaan yani siyaasadda ay u shaqeeyaan iyo siday markaasi xumaantii cadaawadda islaamka u qabaan tashaabuh fara badan baa ka dhaxeeya waxaa kaloo ka dhaxeeya ishtiraaku masaalix baynahuma masaalix bay wadaagaan labaduba markaasi waa midaysan ayaa jirta oo midka kale hadday markaa maslaxadiisu xaqiiqoodo ta kalena way u raacaysaa labada laakiin inaga xagga waqcada iyo dareenka waxa inagu daran kan dambe ee yahuudda ayaa inagu daran waxaynu ognahay nimanka yahuudda ee xabashi degan falaasha la yiraahdo waxay degan yihiin waliba dhulka xabashida dhinaca markaasi bari soo xigta ee dadka muslimiinta Soomaalidu ay degan yihiin waana qabaa'il yahuudda kamid ah oo mar hore dhulkan markaasi soo galay waliba dabaaci ay leeyihiin waxa kamid ah ganacsigooda beeraha iyo maryaha iyo waxaasay sameeyaan ma ka guursadaan xabashida kale iyagu baa kala guursada barkood waxa loo raray dhulka Falastiinta markaasi ee la gumeystay xabash marka ay nimanka yahuuddu ay qabsadeen baa loo raray in badan oo iyaga kamidina waa kuwa maanta walaaladin qasa ku leynaya midda kale waxa jirta usra la yiraahdo al-usra Suleymaaniya fil Xabasha nimanka xabashida niman Suleymaaniya nabi Suleymaan bay ku abtirsadaan balqiisana dhashay inankii markii ay u dhashay markuu guursaday nabi Suleymaan ayaanu ka soo tafsiirinay bay leeyihiin sidaa darteed labadan waxa ka dhaxeeya hadaf mushtaraka hal hadaf bay wada leeyihiin hal maqsado ujeedana waa ku midaysan yihiin inta waxa u dheer millatul kufri waahida gaalnimada ayay wadaagaan ma xasala lil yahuudi min bahr al ahmar wa qalim al shimal min al somal yahsul lil habasha wal aks bil aksi wixii ay ka hesho gobolada waqooyi iyo xeebteeda iyo badeeda cas waxa weeyaan ay ka hesho yahuudu xabashida wuu xasilaya xabashi waxay ka xasilisana yahuuda waa u xasilaya waa cagsi bil cagsi markaasi weeyaan laakiin waxaan u sheegayaa waxa maxishoodalayaasha ee markaa wax magaratada ee cabdiraxmaan har yahuud baan u bixiyey waxa ay maanta midhaha ay gurteen madaxda Hargeysa ninkii la oran jiray Cabdilaahi Suldaan Timcada Ilaahay u naxariistay abwaanka ahaa sheegay waxay maanta gurteen maswaabaydii lama dhuunyadii midho dhunkaaleede manfacaan la cunin baa jiro mowdka ku sida maalinta hore ayuu sheegay waxa maanta taagan hadiyo goorale dadka abwaaniinta ahi waa xigmadyahan hilaadiya waxyaabaha markaasi dhici doona waxaan iyaga iyo yahuudda iyo xabashida iyo kuwa soo daba fadhiyay baan u sheegaya qowlka rabbul caalamiin uu leeyahay am yaquluna nahnu jamiicun muntasir ma waxay leeyihiin ururo isku duuban oo guuleysanaya baanu nahay
ilaahay wuxuu yidhi sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur maalinta layskala macrikada jamaca faraha badani waa la jebinoo way jabi doonaan dhabarkana iyo dabadii weliba yuwalluuna dubur adbaar lama odhanin waxaa laga soo qaaday nin keliya oo fulayo dabada jeediyey adbaar fara badan lama sheegin maalintaas sida nin keliya u daba jeediyo ayay wuxuuba u daba jeedin doonaan bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar baa ilaaha yidhi geeri dabadeedna waxaa sugaya saacatalqiyaamaha suurta haddii lagu afuufiyo hadday suurta geeridu ku dhacdo mawcidkoodu bartaa ilaahay kula ballamay dhibaatada iyo daahiyada masaa'ibka yaalla wax kasta ka qadhaadho ka dhanaan iyaday sugayaan gacmaha muslimiintana iyo mujaahidiintana waa lagu cadaabi doonaa hayse soo urursadaan halkanna wabilahi towfiiq waayahay dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha ayaan bartanka uga jirnaa toddobaadkan insha allah waxaan uga hadlaynaa mawduuc ku saabsan is-aqoonsiga yahuudda iyo maamulka somalilan waayahay abwan cilaaqada yahuudda sidee ayay u saameyn kartaa taariikhda dahabiga ah ee soomaalida gaar ahaan dhulka waqooyi oo saad la socota ahaa dhulkii imaaradihii islaamiga ahaa iyo dhulkii ciziga uu ka bilaabmi jiray bismi illahi raxmaan raxiim walaal waad mahadsan tahay saynu ognahay dhulka waqooyiga ee soomaaliya waa dhul taarikh dahabi leh ama soomaaliba si guud soomaaliya dalka la yidhaahda si guud iyo ummaddan soomaaliyeed waxay leeyihiin oo ay waxaan ku uri adduunyadu u taqaanaa taarikh dahabi ah waxaa soo maray dowlado islaamiya oo muddooyin qarniya u dagaalamaya diinta islaamka iyo fidinta islaamka waxaynu ognahay yuhuudda degan bariga afrika oo xabashi ah muddo badan in soomaalidu ay ka hor taagnayd inay u tallaabaan jasiiratu carab iyo dhulka barakaysan oo sida nebigu shira sal slam ay ku tala jiraan inay dumiyaan xaramka kacbada taasi waa taariikhda ay ummadda soomaaliyeed leedahay ee wanaagsan xagga saamaynta xun ay keeni karto run ahaantii saamaynta ay keeni kartaa haddii dadka shacabka ah ee waqooyiga degani ay arrinta ay siyaasiyiintu wataan iyaguna ku raacaan oo ay ku raalli noqdaan sidaynu ognahay dee waxay keeni kartaa cawaaqib xun oo aan la mahadin haddii laakiin waana sidan u badinayee dadka shacabkaa waa lagu dagay oo waxa la isu raaciyey baqdin oo dadka la baqdin geliyey iyo dhalanteed wax loo sawiree sida runtaa markay waxaa fahmaan dadku hadday diidaan oo ka soo horjeestaan waxaan aaminsanahay inaanay qabanaynin xumaanta siyaasiyiintu ay wadaan oo aanay nimanka siyaasiyiinta ahi saynu ogsoonnahay dee ma matelaan ummadda soomaaliyeed ee muslimkaa waa niman dabadaba dhilfa waa niman gaala raaca waa niman gaaladu ku adeegato marka iyagu ma mateli doonaan marka waxa muhiimka waxa weeyaan caadifadda iyo xamaasaddu wax liita weeye adduunka waxa la yidhaha taariikh baa ka hadha adduunka sideedaba noloshu way gaabantahay qofku muddada uu nool yahay way gaabanta wax liita weeye laakiin wax hadha waa taariikhda ee qonmaya waxaanay soomaalida ku mahmaahdaa waan baahanahay bakti looma cuno ama waad bakti looma cuno waxaa looga socdaa haddii dee duruufi kugu timaado oo wax kaa xumaadna waxaad doonaysid dee meel kasta looma galo saynu ognahay qaranjabka soomaaliya ku dhacay nin walba waxbaa lagu diiwaangelinaya nin waliba taarikhda meel buu ka gelaya marka qaranjabka waa la isla qabaa laakiin magac xumada uun alla iska ilaaliyo abwaankii la odhan jiray salaan carabey waxa uu dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaayee dhashaaday sugtaa xaajadaa dowlata abid timcadoo kale manfacaan la cunin baa jiro mowdka kuusee oo maraykan iyo waxay baxshaan madaxaad naato marka waxaan cunaha kuu dhaafin iyo dhaarshil baa jiro ayuu calidhuuxna yidhi marka waxaa jira wax aan liito oo dee layska ilaalin oo aan dee lagu degdegin oo lagu hamoon waxa kaloo aan raacinayaa sidan yacni maxay saamayn keeni kartaa waxyaabaha saamaynta keeni karta waxaa ka mid ah carruurta waxay ku mahmaadaan ruba daarati naafica badanaa mid dhib lahoo dheef keentaa waxaa laga yaabaa inay maanta inagu aynu dhibaato u aragno in yuhuudi meesha qabstay laakiin waxaa laga yaabaa in sharaftii muslimiinta iyo guushii inay soo dhowdahay ilahay waxuu qur-aan ku sheegay am xasibtum an tadkhulu ljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum massathum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasrullah alaa ina nasra allahi qariib marka maanta inagu dhibaato weyn baynu aragnaa oo aad baa looga qayliyey laakiin waxaa laga yaabaa ina nasr allahi qariib inuu nasriga ilahay soo dhowaado sheekh aadan xagga shareecada islaamka marka la eego maxaa axkaamaha oo ka dhalanaya heshiiska ama is-aqoonsiga yuhuudda iyo somalilan alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd haa xagga markaynu inoo axkaamta shareecada islaamka ama caqiidada diinta islaamka waxyaabo badan baa ka ratibmaya laakiin kulli ma wada koobi karno majliskan oo keliya taa inta ugu rajaysan qaar ka mid aan soo qaadanno horta waxyaabaha ka ratibmaya ictiraafkan mascuumka ee baadilka la sheeganaya u dhexeeya gobolada waqooyi soomaaliya iyo yahuudda awalan waa alwalaa wax la yidhaahdo
sheekha la yidhahdo sheekh alislaam ibnu taymiya a'immadii markaasi xalaqada dacwada markaasi salafka ku jira ee axmed ibnu cabdixaliim ibnu taymiya kitaabkiisa la majmuuc alfataawa ayaa uu ku sheegay sheekhu isagoo markaa waliyo fasal halkaa caqiday fasal la yidhahdo markaasi faslun fi lwilaayati waalcadaawa adduunyada waxaa jira waxa yidhaha alwilaaya waalcadaawa gaal iyo islaam baa ku nool mid waliba maxaad kula dhaqmaysaa muumin wuxuu leeyahay xaq ugu leeyahay haddaad muslim tahay qof muumina wilaaya inaad maxaba iyo nusre iyo markaasi cawn iyo naseexaad siiso gaalna cadaawad iyo goyn iyo colaydna buu kugu leeyahay muuminiintu sidooda waa awliyadii ilaahay iyagaana awliye isu ah oo isxidhiidhiya oo walaalnima iyo nusra ka dhaxaysa gaaladuna waa cadowiyadii ilaahay muuminiintana cadow ayay u yihiin waxaa markaa la waajibiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyey muwaalaadkaas inuu muuminiinta u dhexeeyo isjeclaadaan oo isxidhiidhiyaan waana caddeeyaa arrintan inay tahay waxyaabaha iimaanka muuminiintu uu laasimsanayo ee uu waajibinayo uu keensanayo in gaalo la xidhiidhiyo walaa iyo kalgacal iyo wanaag la siiyana waa arrinta la diiday waana arrintaasi waxaa nayloo caddeeyey inay ka hor imanayso yacni markaasi xaqa muuminiinta inaan markaa la ogolan xaggooda inay arrintaasi markaa iimaankooda iyo walaaga gaaladu uu meel isugu yimaado waana la caddeeya xaaladda munaafiqiinta ee gaalada xidhiidhiya sida iminka nimankan aan ka sheekaynayno haddaynu muuminiinta iyo walaagooda dhexdooda markaa wanaagga yaalla iyo walaalnimadooda aan sheegno qur'aanka ayay ku fara badantay ilaahayna waxa uu yidhi sida sheekhuba uu soo qaatay innamaa waliyukum allahu wa rasuuluh waaladiina aamanuu horta yaa weliyidiina ma yahuud iyo nasaare iyo majuus iyo mushrikiin iyo malaaxida maye waxaa weliyidina allaha koonka iska leh ee wax walba gacanta ku haya iyo rasuulkii uu doortay ergiga uu ka dhigay iyo dhammaan dadka muuminiinta caalamka jooga oo dhan ayaa weli iyo walaal iyo nusre iyo kalgacal iyo walaalnimo idinku leh oo markaa idin haya idinkuna aad markaa inaad siisan ay tahay aayadahaasi ku bilaabmay waxaa laga soo gaadhaya ilaa rabbi uu leeyahy waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allahi hum alghaalibuuna axadka tawalliya ee weli ka dhigta ee arrinta u dhiibta ee nusre iyo markaasi wanaag iyo markaa mawaddo iyo maxababa xagga alla ula kaca iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta allah rumeeye rasuul kuwaasi horta waa xisbigii ilaahay baa layidhi xisbiga ilaahay baana guulaysanaya lama odhanin fahum alghaalibuuna waxaa layidhi fa ina xisba allahi waxaa lagu calaamadiyey kuwaasi marka ilaahay weli ka dhigtay rasuul iyo muuminiin inay yihiin horta xisbigii ilaahay xisbiga ilaahay baa guulaysanaya waxaa ka soo horjeeda waa xisbu shaydaan yahuudda iyo ciro iyo maraykanka iyo xabashiduna waa xisbu shaydaan inay jabayaanna waanu sheegaynaa ilaahay waxaa yidhi ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah waladiina aawuu wanasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaau bacdin aayaddu waxay nagu dadkan wilaayaadka yani markaa shareecada iyo jihaadku ka jira ay horta aad ugu rumoobaysaa ciddii la halmaashaana waa soo gelaysaa ilaahay wuxuu markaasi sheegay u yidhi markaa kuwa muuminiinta ee xaqa rumeeyey ee ku daray hijradii fii sabiililaahi u hijrooda inay diinta ilahay kor noqoto oy diintooda la badbaadaan ee diinta ilaahay u jihaaday inay kor noqoto ee maalka iyo naftaba bixiyey fii sabiililaahi u bixiyey iyo kuwa ansaarta ah ee kuwaas soo dhoweeyey ee soo hooyey ee u hiiliyey kuwaasi barhbabarhka kale awliye u yihiin horta dadka markaa sifadaale inay arrintaa ku dhegaan baa wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga iyo ka weliyeelashadiisana muxuu ka yidhi cadowga iyo ka weliyeelashadiisa wuxuu ka yidhi laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa shaydaan iyo intii raacdee gaala ah cadowgaygii weeyaan buu ilaahay yidhi cadowgayga idinkinuu cadow idin yahay haddaa muuminiin tihiine cadow ka dhigta ilaa laga soo gaadho قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى آخر سورة الممتحنة قصة مركا حاتب بن بلتع أي إلهي كبلا ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلهي سبحانه وتعالى قد يشاهد كسوغا النبي الله إبراهيم يكوي مؤمنين معود مركاسي معيسى هاي سجى إيمانك كل معها ينصر الدين إلى آخر سورة مركاسي كهذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الغبور هكولي دغنينا قوم هجعلانينا هاو نصرنا هاو نصيحيننا قال إلهي وعروضي oo ka quustay aakhiro waxay kaga quusteen ma barrumaysna aakhiro waxay kaga quusteen dambigay galeen markaa thawaabka ma sugayaan sida gaaladu qofka xabaasha galay ay uga quusteen intuu soo noqdo uu warramo saasoo kale uga quusteen marka tafsiirku waxa uu yahay wilaayada waxa la yiraahdaa maxabada taqarrubka iyo dhawaanshaha shayga u dhawaato caawinka iyo kaalmaha aad cidda siiso nasiixada aad u khayr miirto cadowgaagii baad u khayr miiraysaa waxa markaasi akhbaartii muslimiinta iyo sirtooda gaalada loo raro yahuud wax kale uma ictiraafin sirta muslimiinta in yahuudda loo geeyo gobolada waqooyi ay basaasiin noqdaan ayay ka doonaysaa waxaa kaloo markaa lagu xidhiidhin in loo nusreeyo in loo hiiliyo laga hiiliyo walaalihii muslimiinta ahaa aydan mar kale yani markaasi inaad asiibto waxoogaya dheefa ama carad dunya waa ictiraafka oo kale ama horumar yar beeraha inoo horumarinayaan
beer weligeed yahuud cid lagu intifaacay wax u horumarisay lama hayo xaqiiqatan adduunyada taariikhdoo dhan eeg cid ay wanaajisay horumarisay yahuuddu haddaad soo heshaan taariikhda ay soo dhacday ka rajeeya wailaa haddii kalena hogob baa ku dhacdeen ilaahay wuxuu leeyahy allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhu min adulumaati ila annuur ilaahay baa weli idiina marka muuminiintu weli u yahay ilaahay wuxuu ka saarayaa mugdiga jahliga iyo kufriga iyo dalaalka iyo munaafiqnimada nuurka iimaanka iyo daacada ayuu u saaraya cilmiga iyo aqoontu u saaraya ilaahay waxa uu leeyahay dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawla lahum maxaa waxaasoo dhan oo la halaagay loo soo sheegay in ilaahay weli u noqdo oo mawlahooda yahay dadka muuminiinta ah gaaladu laakiin aanay weli arrintooda gacan qabata aanay lahayn baa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay waxaan ku soo gebagabaynaynaa fa ina allaha caduwun lilkaafiriin haddaad malaa'igta iyo rususha iyo muuminiinta la colowdo adigana ilaahay baa cadow kuwa ilaaha gaalo oo dhan cadow u ah rabbi wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan ha ka dhiganina hana u dooranina aabbayaal iyo walaalla aad leedihiin awliya inay idiin noqdaan haddii iyagu dhacdo inay gaalnimadii ka doorteen iimaanka hadday arrintaasi dhacdo fa ulaa'ika hum daalimuun walaalkaaga iyo aabbahaaga iyo hooyadaada hadday gaalnimo doortaan baa layidhi haddaad weli ka dhigato adigana daalimiinta ka mid a ayaad noqonaysaa qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum waxaa la sheegay asal iyo farac xawaashidaadii gacalkii iyo tolkii iyo xidadkii maalkii iyo tijaaradii iyo maxaan ku dhahdaa guryo lagu dekeeyey haddaa ka jeceshin allah iyo rasuul iyo markaasi jihaadka fatarabasuu xataa yaatiya allaahu biamri suga ilaahay intuu ciqaabkiisa keenayo idinla imanayo wixii idinkaga dhafoorin lahaa wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin faasiqiinna ilaahay ma hadeeyo rabbi subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu uga degey waxaanu yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa bacdin yahuud iyo kiristaan ha ka dhiganina awliya iyaga isu gargaara oo gacal isu ah waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ka weli u noqday yahuud iyo kiristaan iyaguu ka mid yahay lafahooda cadcaadiyuu ka mid yahay dariiqadoodu ka mid yahay naartuu la gelaya waanu kula waaraya gaalasha ay say gaalalu yihiin ayay gaalalu noqonayaan munaafiqiintu maxay dhahaan fatara aladiina fii quluubihim marad يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين waxaad arkaysaa munaafiqiin kuwa qalbiga ka buka ee shakiga iyo nifaaqu ku jiro u degdegaya wilaaga iyo xidhiidhinta gaalada waxay leeyihiin musaayib baa dhacaya abaara dhacaysa biyo la'aana dhacaysa daaq la'aana dhacaysa dhulka waa la isboobaya waa la awoodaa jira waan hoos gelaynaa waxaa ilaahay xaqiiqo ku yahay inuu fadxi keeno nasri amaba arrin nimankaa lagu fashilay ilaahay uu qadaro dabeedna markay dib u qoomamoodaan wixii ay qarsanayeen ee shakiga iyo munaafiqnimada iyo wilaaga gaalada ay dib uga nadaaman doonaan baa ilaahay inoo sheegay waa ciro iyo madaxda markaasi xalano fadhida iyo gobolladan markaa kuwa ku horkaadsha waa isku mid waliba yahuudiga wuu soo xaraystay kana imika ictiraafka doontee dalanbaabi'aya ayuun baynu daba soconnaa laakiin kuwa kalena wax ma dhaamaan waa hagaag barnaamijka diiradda jimcaha ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa abwaanse makaab muddo ayaad ku nooleed gobollada waqooyi halkaas waa meel aad cilmiga looga barto culimmada diinta ee caanka ahna waa meesha ay ku nool yihiin waxaa la isweydiin karayaa maxaa heerkan soo gaarsiiyey siyaasiyiinta iyo dadka ay khaldeenba waa run walaalo dhulkaas dee dhul diinta lagu barto culima joogto waa yahay laakiin siday culimmadu u joogtee ay uga muuqato taya uma laha oo dhowr arrin baana u sababaan filaya qiyaastayda waxyaabaha ka midkaa waxaa ka mid ah culimmada joogta hargeysa iyo burco ee aynu inagu halkan ka aragnay la yaqaanaa waa culimo iyaga dhexdooda ay colaadi ka taagan tahay oo iyagu muransan oo iyaga waxaan ku uri dhexdooda aan midaysnayn waa culimo xisbiye iyo nidaamyo kala wata taasaana keentay maanta in cidi dhegaysan weydo culimadii muddada badan hadlaysay sidoo kale waxaa la mid a ama qodobka labaad wuxuu noqon karaa dee hargeysiye burco sida iyagu culimo uga yihiin ee ay masaajid dadka uga akhriyaan oo masaajidda ay dadka uga wacdiyayaan culimo kale ayaa la haysto aan iyagu aanay ogeyn haddii loo sheegana aanay kaa rumaysanayn oo badan baa jooga heer hargeysa bartinkeeda la gaadhay in dadka qaar yidhaahdaan si waxaan ku ihi saraaxaa annagu calmaaniyiin baanuna marka intaasoo barnaamij iyo intaasoo nidaam iyo intaasoo waxaan ku ihi hay-adood iyo intaasoo ummadood iyo intaasoo gaal iyo basaas iyo calmaani isugu jira ayaa intii iyagu wacdiga wadeen ee masaajidda ay ka hadlayeen iyaguna ka hadlayay meelaha kale ee laga hadlo marka dee waa laga hadal batay baadilkaa laga raacay sidoo kale hargeysi burco waxaa laga faafiyaa culimmada inoo aynu aragnaa ay faafiyaan caqiidada u adeegaysa daaquudka caqiidadii gaalada u adeegaysay caqiidadii in gaalada lasoo dhowaysto samaynaysay ee u sabab ahayd ayay iyagu faafiyaan waxaa la faafiyaa waxaan ku idhi in nimanka gaalada ah ee gaala raaca ee soomaalida ah ay muslimiin yihiin intaasoo sano ayaa laisla hortaagan yahay waa muslimiin oo masaajidda manaabirta
ayaa looga doodaa kuwii mujaahidiinta basaasi jiray ee khamiisyada sitay ee culimmada isku sheegayay hargeysa burcay ayay dhooban yihiin kuwii haddaad waxaan kudhi iyaga wax ka sheegto iyagu kaaga soo horreynayay sidaad isaga wax ka sheegtay bal nin isagu masaajid joogo oo nin markaad siyaasi wax ka sheegto dadka kaaga soo horreynaya ka war ninkaas say dadku wax uga dhegeysanaya markaa maanta waxaa ku dhacday masiibo aanay weligood dhaafin ayaa ku dhacday culimmada sidoo kale dee waxaynu naqaanaa oo sunnada ilaahay noqotay in diinta gacan iyo qori lagu socodsiiyo ninkii gabayay wuxuu nabi maxamed baa loo jeclaa jah mar la arkaaye isagana waxaa lagu jirrabay inuu jihaadaaye idinkuna xornimo sidaa ajirtaa jiif ku damacdeen nabi maxamed haddii uu ka baaqan way calayhi salaatu wasalaam inuu jihaado ma masaajid baan 30 sano ka akhriyaya kitaab ayaa waxaan ku iri dad kugu dhegeysanaya baadilka iyo xaqu seefay ku kala baxaan xaaji aadan afqalo abwaankii la odhan jiray oo nin sheekhana ahaa ayaa mar uu arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi sheekh taqiya iyo weli taayiba iyo nebi tanziil keenay ninna looma turin aan warmaha lagaga tiifayn waxa diinta lagu toosiyaa toobigaanada waa qoriga sharcigaan quwade tirinayn meel la tegi waa sharcigu haddaanu quwad lahayn maanta oo masaajid ka akhri cid kaa dhegeysanaysa ma jirto wuxuu ninkii gabay wuxuu asayf astaqu anbaan min alkutubi fi xaddihi alxaddu bayna aljiddi wallacibi seefta ayaa lagu kala gartaa bi xaq iyo been waayahay sidoo kale waxaa fashilmay oo iyadana maanta ka kac noqotay wadaadadii odhan jiray dadka wacyigooda alla dhiso markaa la jihaado iyaduna inay ahayd sheeka bareley ayaa soo baxday 40 sano la taagnaayeen dadka wacyigooda la dhisaya wacyiga marka la dhisayo dee dad wacyigooda duminaya iyaguna xaq kale ka waday markaa waa lagaga dheereeyay markaa wacyi dhiski wuxuu gaaray maanta in hargeysa bartankeeda yuhuud looga sacabiyo iyaguna oo indhahooda 15 sidaa u eegaya marka qodobadaas ayaa waxaan filayaa in culimadii la dhageysan waaya sabab noqday waayahay abwan waan kugu soo laabanayaa sheekh aadan waa markaaga adigu muddo dheer ayaad halkaas dacwada ka waday marnaba isku daydeen inaad culimada idinkoo ah aad maamulada kala hadashaan arrimaha halista ku ah diinta islaamka oo aad xujada ku ogtaan alxamdulilah wakafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli wabacd nacam jawaabtu weeyaan waqaca في هناك بلاغ مبين وإقامة الحجة عليهم قد حصلت مني ومن غيري أكثر من مرة وأوسع من لقاء في مكان هدان لغة عربية أن شعلا ينكو هدلو وايد عضي يعني بلاغي قارسين سيدي لهاي نوع أمرين قارسيني إن حجة اللقو أوغي أو حسشي حجة اللقو حقيقة كان عضي أنا أقول بددك أن قبن شرين وحي حق مغضي مركز الدين توقع ظاهرة خطر ومدنا كوا أن قدقو أن قبن شرين إلا يسيك استياه بيين إلهين دين ميسيدين هتقول لها شحقه waxaa dhacay cusub ee aad aragto intaanad nafashilinood mimbarka u bixin hoos noola xansa annaga waxbaan ka qabanaynaa tallaabaan qaadaynaa laakiin folosh iyo afka baarkiisa ayay ahayd tallaabo may qaadayn way xasishay markaasi xujadaasi meel inka badan iyo makaan inka badan iyo meel isugu yimaadiyo shir caam iyo meel caam oo dadka laga tawjiihiyaba waanu ka jeedinay annagoo dabaqayna liyahlika man halaka can bayina wa yaxya man xaya can bayina wa ina allaha la samiicun عليم الأنفال آيات البيا فرتنات بإلهي كويري بدر باني دعدي markii la kala baxay xaq iyo baadilka kala cadaadeen aba ilaahay risaa waxaan u sameynay inuu halaagsamay kii halaagsamay isagoo xujacad ku sugan kii noolaanayna uu noolaado uu bayna ku noolaado cad wuxuu ku noolaanaya uu garanayo dariiqa uu raacayo ilaahayna markaasi waa samiic caliim wixii lagu hadlayo wixii la sameeyaba waa og yahay waana maqlaya laakiin ilaahay azza wa jalla waxa uu yiri waman yuridillahu fitnatahu فلن تملك له من الله شيئا ورحد إلهي هلاقيو أو فدنينيو أو منافق نمية قال نمية قول در دورانيا أو إلهي هو جنيو ما أديك حق إلهي وكين يا نصري وحادو قطر يسامجرت أولئك الذين لم يريد الله أن يظهر قلوبهم إلهي مبدونين كوا وكوا آنو رب الدونين مبدونين وقلبي قد ظهره منافق نمية قال نمية شرك يني قالوا ولي النقدان إلهي كما ظهريو لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وكوا هوغي محافظة حد عيب ما أنت الدنيا ده محا عليتني النعم ما أنت الدنيا ده كقصعدة الدنيا ده وحي لين خس يعيب يفشل يدلنيمو آخرنا عذاب عظيمة وين بقى إلى هاي سينيا ومدي إسلام كيدع فرورين ومدي إسلام كأي أرحدة كتشبينيا أن إير كل نقضة مرة هرنا وان شيقنايا وحيابها كرة ما يطلب قادين خذلان لإخوان المسلمين في فلسطين وهذا حرام شرعا وجريمة لا يغتفر وخزي وعار إن ولا لهن ما أنت هو جنو أو مسلمين أو فلسطين شرعي يا مركزي شرعي يا عقل بواقحة ومثلا بنانين جريمة أنا سامحات لهن ويان وعيب بين نقطها يبر نقطها الله لأن ترك واجب النصر لهم كما ورد ما شوحة كذا شيء واجب نصارنا إن نوجي أهلنا أفيا أدين أيام مركزي لقى بحي
أبو هريرة رسولك كوري عليه الصلاة والسلام المؤمن مراءة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحوده من ورائه. waa xadiis markaa ansaxay wuxuu rasuulku muuminka muraayid buu yahay qofka muuminka dhaliisha iyo ceebta ku taala say muraayid ku tusto ee aanay kuna ceebayn ayuu qofku muuminka u yahay waana walaalka qofka muuminka yuhuud baanad walaal ka dhigatay adigoo dabada iyo dhabarka u jeediyo walaalaha dad aad leedahay markaa isku jinsi iyo isku diin baan adigu aad leedahay anigu diinku uma rumaysnine ayaa dhabarka u jeedisay yuhuudna markaasi walaal baad u noqotay halkaad markaa haddaad iimaan yeelan lahayd aad muuminka walaalkii noqon lahayd laakiin dadka hargeysa joogay muuminiinta muslimiinta waxaan leeyahay walaalkiinu waa muuminka waa muslimka qofka muuminka ana meesha uu kula kulmo qofka muuminka ah baylahdiisa iyo daycadiisa iyo hantidiisa iyo noloshiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisaba waa uu ilaalinaya waxaanu ka difaacaya dhabarkiisaanu dhowraya uu ilaalinaya waayahay gunaanadkii barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay abwan samakaab waxaad dhowaan munaasabad isku soo baxa aad ka jeedisay suugaan mawduucan ku saabsan hadda maxaa suugaan ah oo aad noogu soo gabagabaynaysaa dhankaaga walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa gabay la yidhaahdo abhintu waxa weeyaan qofka in la yidhaaho warhoy waxaa ka joog oo weliba ilaahay lagu dhaariyo ayaa abhin layahay sida soomaalidu taqaano gabayga waxaan kula hadlayaa shacabka meesha ku nool waxaa laga yaabaa kii hore inaan siyaasiyiinta kula hadlayay iyo dabadhilifka laakiin kani shacabka ayaan ugu caqli celinayaan ugu talagalay inay bal wax ka fiirsadaan waxuu gabayga odhan way soo qaargoosan qayb baan ka soo goosananaaye ictiraafkan loo ooyayo ee lagu alaamayo haddii aad dadkayga u ogtiin eelka daba yaalla israa'iil ma raacdeen intaa naga irdhowdaan islaamnimada kuma iibsateen ololkii naareed aqoonsiga ma doonteen intaa qudus ilowdaan mulaha la wada dooxay iyo maxasta ooyeysa hooyada ilmada duugaysa iyo ubadkan qaylyaaya odayada gaboobay ee kufrigu ku adyadoonayo falastiin agoon iyo waxaa orin lagu laayay inta ka indhalaabtaan yuhuud ehel ma muudeen inta ila biyala gees martaan omas ma aadeen halkii uu ilaahay nacdalay uma aroorteen adduunkaba halkii ugu xumayd kama abbaarteene adligiinna kama iibiseen banu israa'iil alambaqa madow kuma rideen inamadiinniiyo khiyaamada intaa leeg malaakama ilduufteene oday iyo wadaad iyo akhyaar ma indhabeesheene abaardhowr ma geyseen markay nugulku oomaane udubkiinna uma leexiseen guri abaareede awrkii idiin sidee biyaha ma adhax goyseene dhalantad intaa aamintaan ma alalaasteene utunteenna nimankii ku mamay ubax ma saarteen israa'iil wixii ay jecleed kuma addeecdeene isirkiinna ceeb iyo dhegxumo kuma asiibteene ilbaxnimadu meel aanay jirin kama abbaarteene afka kama tidhahdeen waxaan uurka sii jirine ayaadka diinta iyo sharciga ma indhasaabteene aflagaada lama tiigsateen culimo awdiine iftilada intaa raadsataan axan ma boobteen waxaan ahay abwaan guune iyo oday la dhowraaye weligay oo doroskaygu waa sida iftiinkaase waxaan sii ishaaraa gadaal laga ogaadaaye asraarku waa waxa qarribay aragti waayeele haddaad taladan ii oofisaan waa aflaxaysaan adduunyada sidii loo dhisay ee udubka loo taagay waa waxaan la arag oo la maqal gaal la aaminaye haddii aan inkaar baa dhacday eegga laga laaban wax aydan ogayn baan arkaa adhaxjab weeyaane nabsigii agoonta ayaa gawaan idinku ooday waa agoontii falastiin adduunyada balaayaa ka dhici aafa godoobeede taladii la eeday ahaan idam ilaahaye aqalada hargeysaad xamaar ku arki doontaane afrikaan madow baa berbere idinku oodayn eeraan dad laga keenay iyo eeshiyaa imane hub aydaan aqoon baa la dhigi awdal iyo xiise ubadkaa dhasheen baa u dhiman aanan ruux kale eh isticmaalkii waagii tagaa soo ardaa dhigiye nabaddii anigu aan nacee laga dul ooyayey iyadoo cirkaa aaday baa la arki doonaa taariikhda ruuxii akhriyey ama ilaaleeyey aayaadka diinta yuhuud lagu ishaarayey weligood axdiga ay galaan ciduma oofshaan aflagaadadooday rabbina ku adyadeeyeen ambiyaday dileen waa waxaan cidi ilaaweyne nin hadduu awowgaa dilo oo arami gaadhsiiyo inaad aarsataa waa nin raga alabadiisiiye anfac maleexiniyuhu hadday anafo waayaane nin walaalkii iibsaday dhegxumo lagu ilhaameeye kollay orodda diintiina waa ka anfi taagteene bal halkuu ibliis idinla tago la arki doone gabaygaa waxa layahay abhin waxaana lagu talagalay shacabkaas la qalday bal inay aqli celin u noqdo waayahay gunaanadkii sheekh aadan dhankaaga maxaa kusoo gabagabaynaysaa ikhtaamku wuxuu noqonayaa horta marka hore waxaana ictiraafka ama aqoonsiga lagu sheegay iyo waxyaabahan dhacay ee afcaasha shaniice foosha xun leh ee kabadbadinta ah ee yahuud lagu raaligeliyey ee lagu farax geliyey dee horta halka ilaahay weli u noqon lahaydeen yahuud waxaa saa ku weli noqoteenood yahuud weli umaanaa noqon bay leeyihin yahuud baad qalbigeeda raaligelisay ood ka farxisay way farxeen maalinkii ilaa xad bay farxeen sooma taasi waa mid waxyaaba shirkiya baa dhacay maxaa ka mid ah
gaalka ilaahay nacay ee ummaduna nacday ee yahuudiga calankiisii baad u sujuuday ma ilaahay baa sujuud kugu leh mise waxaa kugu leh markaasi calankan markaasi ayaa sujuud kugu leh waa gaalnimo qofkii ku kadsoomay waxaa laga rabaa wixii maalmaha dhacay iyo waxa gadaal ka dhici doona waa inuu u laabto markaa toobad saadiqada oo khaalisada oo nasuuxa oo dhab ah qabla awaani lfursaan leey war intaanay qarqaraha soo gaadhin naftu waana dib baan markaasi tawxiidka uga cusboonaysiisa ayaa laga rabaa siday qaar idinka mid ay sameeyeen ee aan hayno kuwaasaan qabuul iyo sabaad iyo sugnaansho aan u rajaynayno oo dad badan oo markaa la qalday ay ka mid ahaayeen waxaan laakiin maanta si gaara ugu gon leeyahay shabaabka quyuuriinta ah rag oo dhallinyaro oo xiniyalaan dhulka ku ogahay waxaan ogahay rijaal maqaawiir halyeeye rag ah ayaan markaa ogahay culimana wada tuuri maaya anugu bahda culimada horta inay guuldaraystaan anigu culimadan ka mid ahay ma jecli hadday inuuga faganta caamaduna markaasi way ka sii darayaan idaa baqbaqat inaaqatu fa kayfa yakuunu lbaciir haddii culimo dabarka goosato caamana warkeeda daa waxaan leeyahay culimo waan u baaqayaa saan ragga iyo dhallinyaradaba ugu baaqay qabla kulli axad baan culimada u baaqaya waxaanaan idinku leeyahay maa baqiya lakum shay ilaa xamlu silaax walindimaam ilaa sufuufi iljihaad hal gootaayo wallaahi inaanay idin hadhin meel aad ka hadashaan oo isa soo taagtaan inaanay baaqi idin ahayn jeer oo wax kale markaasi aanay idin hadhin inaad hubka xambaartaan oo yacni markaasi toobigaanada la sheegaya aad qaadataan oo aad ku soo biirtaan safafka jihaadka maanta jihaadka ee xujada lagu jihaadaya cilmiga jihaadka seefta iyo waranka lagu jihaada fardu cayn weeye idinkaa kutubta ku haya haddaydaan been ka sheegaynin salafku ay markaasi ka warrameen waxa weeyaan taana cidi wax la markaasi qorax soo baxday sacaba laguma hadhayn kare waxa weeyaan xaqa lama caddayn kare waa fardu cayn jihaadku maanta in loo diyaar garoobaa oo isticdaad la galaana waa fardu cayn waxaan rabaa inaad noqotaan xuraasta caqiidada markaasi ilaaliya xumaadda markaa difaacaya tawxiidka inaa xurumaadkiina ilaalisaan oo sharaftiina iyo dhegtiina iyo dhulkiina iyo dadkiina aad difaacdaan baa marti laydinka yahay oo aad noqotaan sidii nebi maxamed ilaahay subxaanahu watacaala kuwii rabeeye saxaabadaha rabbi uu ku sifeeyey rabbi waxa uu ka hadlay saxaabada fii kitaabihi alcasiiz muxuu yidhi min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir markii la sheegay ninkii markaa Anas ibn Nadar iyo raggii la midka ahaa muuminiinta rag baa ka mid ah oo raggu meel wada rag ahayn muuminiinta markaa rag buu kala dhex baxay ilaahay muuminiinta rag baa ka mid ah rumeeyey cahdigii iyo ballankii ilaahay ay la galeen waxaa ka mid ah mid ashashiisii qaatay iyo ballankii uu fuliyey badhna way sugayaan oo may ka bixine wamaa badaluu tabdiila ballankii ilaahay la galeen wax bedelaada kumay samaynin saxaabada maxaa ku xiga ثم الذين يلونهم من القرون المفضلة قرنيدي فضلك بدنا يا رسولكم مركو كورما يدي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دادو حاو خير بدن كوان لنا ولا بيقول قرني جيجا وحكو حيجا كوسو حيجا والتابعين يجا كلا كوسو حيجا وأتباع يجا صار رعدي بخاري مسلم باي نوشيجا صحابة يتابعين هدي عد للراعيو با أمدن للراعو عد كلا للراعي مركاسي معها وحن لنا هاي ولا لها ما أنت هلكا تشوجا waxa weeyaan masaalixda iyo mafaasidda waa la isbarbar dhigaa haddaabaad soo heshaan oo wax ictiraaf ku sheega aad markaa keentaan inta lagu khasaaray iyo inta lagu faa'iiday ayaa miisaanka la wada saaraya boqolkiiba 99 hadday khasaaro noqdaan ma mar ictiraafa ayaa wax ku taraya geerida walaalada ku dhacday ee yahuud gacantooda ku timi adiga miyaanay tunkaaga saarnayn walaalada la gumaystay Soomaalida galbeed ee xabashigu gumaysaa waxay ku maahmaahan geerida galbeed ka dhacday gundahaaga ka filo geerida qasataalla hargeysa ka filo haddii aan halkaa dib looga noqonin markaasi weeyaan waxaana la rabaa faraaraad inoo yeesheen cadowguna faraaruhu ka faa'iidaysanaya ninkii la odhan jiray yamyam ee Soomaalidan galbeed ka mid ahaa ayaa gabiyey hal bayd aan ka soo qaata ama labo waxa uu yidhi markaa midnimadu ka hadlay iyo waxay tarto wuxuu yidhi markaasi dacal qudhago iga jeexan baan geyn dawaaraha daayeerkii geedaha fantow waad ka soo degi daayeerkii geedaha fantow waad ka soo degi go'ow hadduu kaa kala dilaaca dhaxan ma celiyo cawrana ma asturo muslimiinta haddii la kala dhantaalana caynkaasay noqonayaan daayeerka geedka saaran waa xabashiga iyo yahuudiga iyo nasraaniga daba socda ee maanta dhulkii muslimiinta dhakada ka saaran markaan dawaarka mariyo go'a iga jeexanan walaalkayga faraqa noo dhexeeyo soo dhoweeyo geedka saarnaan maayo daayeerku wuu ka degayaa waxaanaad noo qiil samaynaysaan oo dawyada u xaadhaysaan haddaad yuhuud soo hor kacdaan dee annaguna waanu joognaa ogaada ku talagala markaasi weyn wabillahi tacaala tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa astaghfiruka wa atuubu ilayk waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay mowduuc la xiriira
is-aqoonsiga yahuudda iyo maamulka la baxay somalilan iyo sidoo kale faragelinta maamulka yahuudda ee ku aadan gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa marka hore allah kadib ka qaybgalayaasha barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن